waddanka Hindiya magaalada Bombay la yiraahdo qiso cajiib ah ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin Hinduus oo gaal oo mushrika oo waddanka Hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninkan muslimka ganacsadaha xiriir baa ka dhaxeeyo badeecada uu ka iibsan jiray marmar maraakiibtu u saari jiray badeecad baa jiray Hindiya laga helo Australia aan laga helin badeecadahaas markaa intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama cargo diyaarad buu u saari jiray ama container marka buu u saari jiray ninkii maal qabeenka ahaa ee Australia ahaa ee Hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka ee muslimka ee markaa la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yiri badeecadan tan adaan ka iibsaday ii soo saar diyaaradda cargo-ga lacagtina waa tan alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday iigu darbu ka yiri markaas uu yiri waayadan qaraxyo iyo adduunka waa la cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eega badeecadan aniga adiga soo iibsatay de ana ka iibiyo waan garano ana u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ilaa yimid maxaa ku jira ii sheeg markaas uu yiri wax kale kuma jiraan ilaahan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday buu yiri waa sanad yar oo san dheer oo gacmo badan oo Hindiya ay ku dhaxsanayaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaas uu yiri culimada idaan soo weydiin in shariicadaydu ii saamaxayso in kale taajir markuu muslim yahay oo iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaana inuu shariicada islaamka ku dhaqmo maxaa banaanayn maxay shariicadu banaanaysay maxaase ii banaanayn wuu soo noqday wuxuu yiri waxay culimadaydu igu yiraahdeen ma banaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana banaano shariicada islaamka ma ogolo waana xadiis saxiix oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam uu sheegay uu yaabay ninkii war inta oo sanaan saaxiiba ahaynoon wada mucaamaloonay maxaad igu qaadi weyday ma qaadayo wax kale aniga wax kale oo xalaal ah hadaad ii keento waan ku saaray diyaaradda laakiin kan ma qaadayo diinteedana ii saamaxayna ku qaado gabadhiisiiba marka inantii uu dhalay baa fikiraysa waa gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabaheedii hooyadeed hoteelkii markay degeen ay tageen ayay tiri aabo ninkan muslimka inta oo sanad la mucaamaloonaysi muxuu inoogu qaadi waayay bay tiri ilaahayna aabo waa diintiisa ogolayna naga daabuudi aaba raay baan ka qabaa bay tiri halka raay baan ka leeyahay raaygaan ka leeyahay waxa weeyaan bahalkan aan iibsanay marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo ma socon kara laba lacag iska bixin kari maayo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay oo hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga ka dhaadhicsanna baahideena kana daboolaya markay dhibaatana qabatay xambarino waxay tiri ani arintaas maskaxdeeda ma galeysay tiri war kale keen فكرت لكن مسلم كيف التلفون كيس قبضتي ولا هذا الشيء وحيت بريت ولا انكم اركان دونيا وايو وين انت ودق عين كاس او دلي ويانا ما انت كوتمد يا ابيه لا سعودي اي كان مالبو marka ku martay qaaday markay u timaday wuxuu marka islaantiisii buu soo kaxaystay oo xijaaban oo gabadh mutadayinada markaas uu soo gashay hoteelkii halka gabadhii fadhiisatay waxay tiri anu adigan kula ballamay ruuxan kale kula fadhida maxay tahay wuxuu yiri ruuxan kale waa xaaskaygii diinteeda islaamku ima ogolaanayso inaan adiga kula kaliyoobo limaada waan ku geeyay adiga mahram badita mahram imatid mahram badu baahanta nabi maxamed baa yiri ninna naaga ajaaniba inuu san la kaliyoobin illa mahramkayga la jooga mooyaane alayhi salatu wasalaam taana horta qacbay ku tiri qalbigeedii leedin bal ya meesha taale waxay tiri su'aal baan ku weydiinayaa diintaadu adiga waa maxay waa islaam iyaad aaminsan tahay sheeg Allah bana aaminsanay la tudrikuhu al-absar wa huwa
yudriku al-absaar كعيرك أبو ردك أبو رد مركا هالكي فرصة وحي قلنا قطعي إنه نكى قبض ودعوة السير إنه يدي هالكي كو إسلامته إنه هوتيل كي كل نقط إنه هو يدي أبيه ده كذا دعيس دين الإسلام كا الله بدي والده دعوة وين أي كو قنعان دين الإسلام كسوق قلان هداية دمرك عليها الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكي قريش adeer anu kelmad baan la rabaa inay mar kaliya yiraahdaan haday kelmadda ay yiraahdaan arab oo dhan madax bay u noqonayaan arab ajam oo dhan jizyada ka qaadayaan kelmaddaasi waa maxay wala ilaaha illa allah aba jahl basaraka wuxuu yiri aj'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab saddex boqol iyo lixdan ilaahun caabudaynay ayaa baahidayadii dabooli karile maxamed ma waxa uu leeyahay mid kaliya caabuda وارنجا كعية بودي ماشى إلى هيدنا عبادة دودنا هكو صبرنا مراد كمحمد وكله يا دين ديسن كدينا يو كهرا يا ما هنا نجا مريا بيداده بركة كدر يران أيو النبي صلى الله عليه وسلم السجي هذير كي بس كسوه هراي بركة أبو طالب أيا يري هذا الحب كمال أورنا واسدة ما أنت أبي كدي ديان بركة هذا رادك وكلمة دامر يدبودي قيامة هكو مرخات فوري هل مرة نادي يدبودي كلمة داس maalin kasta waa u bandhigay adeerkii dacwada sakaraadkii markuu qabtay ayaa la yidhi adeerka Abu Talib baa xanuunsan oo jiifo oo dhacay markaa uu nabigu isku taagay calayhi salaatu wassalaam kolkuu u soo galay Abu Talib wuxuu arkay dhinaca waxa ka fadhiya Abu Jahl yaa uga soo horeeyay Abu Jahl baa uga soo horeeyay siraac xaq iyo baadilku was garab socdaan la socdo markaa uu nabigu ودواد أديرك عمي أدير هاي كلمة نحاج لك بها عند الله يوم القيامة مالك قيامها هنكون مرخات فرع أو هنكون شفاعة قاضي هل مرون كلمة دعني جاي مغشيب كيدي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركاسو يا أبو جهل بو يا أبا جهل بكويري أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب من ملة عبد المطلب بعد ما أنت كوي عنيسا يعني دينتي أبو ياشن إنتو تكتكتو دينتا عصبة محمد ولي مدي مياد رومين ساود راعيسا هو أمسك هذا النبي قال سوير جدي صلى الله عليه وسلم أدر كلمة دا مرلا بعد يبيع لي مكيلي مرلا بعد هذا هو أمسك هذا أبو جهل بس هو جدي مركب قدام بيس أبو طالب وحيري على ملة عبد المطلب بان كل انت محمد واسكك يدابو كيدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت كذا دقوا جعلات تبى النبي قال له ما هذين كريس دلالة هذا ولادها الدلالة هداية هذا ولادها وحويان إن هذا خير كذا قوي يدد إن هذا كلمة دا أوبن دكتد إن هذا الناس تحيسد إن هذا الدم قتد إن الدين تأوشيكتد وشغل هذا قويان لكن قلوب تودا أنك هاي نبا إله إليه هاي كان دون قلبك أنك نور يا هداية قلبك سجلين هنا كان جعلات هذا ما هدين يصير مركا أبو طالب والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أذيركينا هداية النصيب وموسى يلن سلمان وفارسين إلهي وسوحدي أبو لهب والنبي محمد أذيرك اللحم ينا هداية النصيب ومو يلن بلال الحبش إلهي تبارك وتعالى وسوحدي يهدي من يشاء كودون إلهي سقهدي كودون مركا إلهي أسماء دي سواحا كمدى الهادي هنونية الحافظ وأسماء إلهي إلالية سقاكو إلالين صدو دونو كوكو إلالين ماشو دونو كوكو إلالين غورتو دونو كو إلالين بلا أسباب
سقالي سقاشة كان مقع إلهي النبي محمد يري مقع دا ونكسن إلهي أوليه كو الله بريو باهدين كو يديس تبع علمد لين سقالي سقاشة كان مقع به مقع والبا معنى قوني وحنبار سنيح مقع والبا معنى قوني أيو حنبار سنيح